waxa maalintii labaad si xiriir ah u socda dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya. Dagaaladaasi waxa u dhaxeeyaan ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigreega. balse ilaa galabta dagaalku waxa uu si gaar ah uga socday 7 deegaan oo ka mid ah waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan maamulka Tigreega. waxaana uu dagaalku si gaar ah uga socdaa xuduudda Suudaan ay la wadaagto Itoobiya iyo sohdinta ay wadaagaan maamulada Amxaarada iyo Tigreegu. dagaal qadhaadh oo socday 2 saacadood waxay labada dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, laakiin ciidamada Itoobiya ayaa la wareegay tuulooyin ay ka dagaalamayeen ciidamada Tigreega. waxaana sidoo kale ciidamada dawladda dhexe ee Itoobiya lagu jabiyay xuduudka Suudaan oo gacan siinaysa maamulka Tigreega oo ka dagaalamaya xuduudda Suudaan ay la wadaagto Itoobiya. waxa galabnimadii shir jiraayad magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega warbaahinta ugu qabtay madaxweynaha Tigreega oo ka hadlay xaaladda deegaanka iyo dagaalada dhex maraya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka uu hogaamiyaha u yahay. ciidamada ammaanka deegaanku waxay sameeyeen doorasho nabadeed, waxay ballan qaadeen in shacabka Tigreegu heli doonaan garab istaag buuxa si ay u burburiyaan cadowga fog iyo midka dhowba. balse khudbadiisa waxa uu raaciyay in xoogaga hubaysan ee Tigreegu ay burburin doonaan ciidamada isku sheegaya kuwa federaalka Itoobiya ee weerar ku soo qaaday muwaadiniinta shucuubta Tigreega. waxaanu ballan qaadaynaa inaan iska difaaci doono cid kasta oo na soo weerarta. hadda dagaalku waa uu socdaa, waanu iska celinaynaa cid kasta oo weerar nagu soo qaata. sidaasi waxa warbaahinta u sheegay madaxweynaha deegaanka oo warbaahinta kula hadlay caasimadda deegaanka ee Tigreega. warbaahinta guud ee caalamka ayaa mareegaha caalamiga ku daabacday in xukuumadda Masar ay qorsheynayso inay dagaal ku qaado ciidamada Itoobiya ee ku sugan biyaha Niilka oo Itoobiya iyo Masar ay isku haystaan. laakiin waxa xusid mudan sababta ay Suudaan u gacan siinayso maleeshiyada hubaysan ee ka soo horjeeda dawladda federaalka Itoobiya. laakiin xukuumadda Masar ayaa u soo dhex maraysa Suudaan si loo jabiyo ciidamada la dagaalamaya maamulka Tigreega. lama oga xaaladda Itoobiya halka ay ku dambeyn doonto.